هارون قال كم حدار كورة فرسالات قوتات المناطق قيمتها في عيدك حوق النقص ولا تليه iyadoo loo diyaar garoobayo dagaalka kooxda al-shabaab iyo sidoo kale difaaca shacabka Soomaaliyeed ee Soomaaliya saraakiisha ciidamada ururka 49 ee magaalada Baardhare ciidamada ku dhiirigeliyeen dardargelinta howlgallada ka dhanka al-shabaab muddada lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan laba xidigle Sheekh Ismaaciil Sheekh Abdi Qorrax ayaa ciidamada u sheegay waxay la dagaalamayaan inay yihiin qawarid nabigeena naxariis nabadgelyo dushiisa ka dardaarmay isla markaana shacabka Soomaaliyeed dibkooda ka dulqaadaan si ay nabad ugu cibaadaystaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan ku dagaalamayn waa dagaal xaq oo jihaad yaan la dirirayna khawaarij baan la dirirayna yaa khawaarij la dirir macnaha la dirin in Allah nabigeena amr alayhi salaatu salaam waxa la khulafaa ur-raashidiin midkaan salbigiisa dhabarkiisa midkaan dulqaweysar ku jiro yiri kuwa dhabarkiisa ka imaan doona ku jira yaa ummadeyda qaribi doona fasaadin doona yiri dhibaataynta bal fiirsaya saasoo nabigeena uga dartaan oo noo sheegay nabigeena alayhi salaatu salaam qoom inay imaan doonaan sufahaul ahlaam hudathatul asnaan qala aqligooda uu wareersan oo waxay ka hadlayaan baad fahamsaneen maanta haday diin ku sheegayaan ma fahamsanid haday ku sheegaan inta kugu maxadarayaan meeshaas xarada boodkeeda 9 caruur ay ku gowracayaan hay wacdi uu sheegay oo ilmihi wallahi inaya مسلم يالي رهرت المسلم يدي ولساني سما مسلم وقفك gacantiisa iyo carabkiisa muslimiinta ay ka nabad galaan islaamnimo ninkan sheegan kara ma marka waa wareerka asaga ah inuu ninka diin ku dhax wareero diin uu ku sheego shayga diinta ugu darnaan oo gal hay'ad shayga diinta ugu daran maxay tahay waa qof muslim oo la dilay nabiga kaleey salaam wuxuu yiri laqatlu mu'minin waahidin ahwanu ala allah min zawali dunya wama fiha halka mu'min oo la dilay adduunyada lagu dhax dilo dhiigiisa lagu duldaadiyo lagu dilo iyo adduunyadan oo dhan oo gadoonta ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu qiimo badan halkaas qofka fiiriya ninka maalinka marka 100 qof 200 500 600 xasuuqaya hadana diin ku sheeganayo diinta ku dhex jira ka war nabigeena marka saas ku tilmaamay waa sufahaul ahlaam aqligooda waa wareersan diinta bay ku dhex waasheen diin bay sheegayaan diintana waa burburinayaan wixii diinta laga ilaalin lahaa ayaga ugu daran oo ku dhex jira hudathatul asnaan buu yiri sanadkooda waa yaryahay waa niman dhalinyaro ah waad aragteen hadda waa inta ugu badan waa niman dhalinyaro ah kuwa fasaaday odayaalena waa ka buuxaan laakiin xoogooda waxa weeye la qalda oo aruurinayaan waa dadka dhalinyarada quraanka waxay u aqrinayaan buu nabi kaleey salaam saad u aqrinaysan ka daran qiridiina waad nacaysan yakhrujuna min ad-din kama yakhruju as-sahmu 'an al-qaws ama 'an ar-ramiya diinta waxay uga baxeen leebka qaansada markii fag laga si fag uga tiraha uga bax waxa weesaasoo kale uga baxaan tuma la yacuudun man ku soo laabanaya diintu waa ka baxeen wax diin oo leeyihiin mar kitaabka ay sheeganayaan waxay sheegayaan walaa yatajaawazu iimaanuhum xanaajirahum buu nabi kaleey salaam iimaankooda islaamnimada iyo diinta ay ku sheeganayaan halkaas kalxamay ma dhaafsiisna war ilaahay in ku dhaarin qof islaam oo diin oo kalxama u dhaafsiisanta miya qof islaam inta soo qabtay gowrici oo la ilaaha illa allah laba xidigle Cali Usmaan Cali taliyaha ururka 49 guutada tobnaad qaybta 43 ee ciidamada xoogga dalka ee magaalada Baardhare ayaa sheegay in howlgallo lagu bacsanayo al-shabaab laga bilaabi doono dhammaan deegaanada ku sugan yihiin cadawga wuxuu sidoo kale hambalyo u diray geesiyaasha qaranka ee dhawaan iska difaacay dagaaladii cadawga ay ku qaadeen Bariire iyo degmada Awdhigle oo diin ku salaysan waay nabigeena wuxuu yiri ninka ay dilaan ayaga ama dilo يا الله أنت جنة أصلا توير نبينا عليه الصلاة والسلام عرفنا إن أمتقناي أن أتكيسرنا وورجت اسمه برنا إنه ديال غير بلاش وقلني وقول كان إلا يلقى صوب لو عرف كيسة أنت ركبا بأمتقنا كل شيء ركبا بأكل عمي بقى تجرافة ذيك هجر تقورد أقرأ إن تكون مريض سيراتك مركب عرفنا نوان كنا عاسر والله الدردين كورم ساكن تاع حبل اسكو بالله لا عرر كورم نين اللي بير جنة كوجل دوق هداد جنة كوجليسا هناك عرت wax saxaba laga ma carrayso carr laba jeerab adigu jid fiican ba ku taagay daadima tashiid ba tahay wax sheekaana ma wax la sheego diinteena islaamka haysan noo sheegto waa ka adeegtii ba huba aniga inaad ka adeegtiin ba huba waxa yeeleen waxa way shayga ku socotaan xaq waa carabna inaad dalkanaga iyo dadkanaga diinteena ka difaacno haday isku dayaan oo ma taqaanaa soonka waa ognahay waxyaalaha ay sameeyaan laakiin ma lagu sameyn karaan beelaha joogan ba ugu tagi doonaa
waxaan ilaahay ka baryayna mar walbana aanaba ognaaba inaan ka gacan saraynayn waxaan aad iyo aad tahniyad iyo boogaadin ugu dirayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku diriray meesha la yiraahdo Owdhig farxad bay noo tahay ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed inay qawaarij ay soo weeraraan ayagoo waliba waxyaalaha dadka ay ku argagixiyaan wad qarax waa argagixin waayo waxa qarax bay wataan ayaga daba socod soo moogay qaraxa jigtu u yiri asaga kama baqay maxaa u baqaysaa asaga daba socod markuu qaraxas bugdho iyo xabad kugu bilaabay qaraxas qofku garaafeenaya xabad inaasan ka gelsan rabaa inaad ka cararto ma adoo sii socod inay xabad kugu dhacdana wax sax ma waa ogtii marka say nimanka ay sameeyeen dhagartoodii bay maleegeen baabuur beerareen meeshii bay isku dayeen waa la ogaa wixii ka dhacay meeshaas waxa ka dhacay aad iyo aad baa ugu hambalyeynayna intii dhimatayna shuhado weeyo ilaahay naxariista janna inuu geeyaan ilaahay uga bareena inta dhaawaca ku dhaawacantana ilaahay inuu boogadhayaan ayagana ilaahay u weydiisanayna waxaan rabnaa marka ku dayasho wacan waayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa weeye saaka meesha maray qof walba uu garan karaa si fiican oo wanaagsan oo hab fiican buu ku socdaa qawaarindu waa gabagabo ayada dhanba gabagabo insha Allah taala inta u dambeysana waa la soo tirtiri doonaa Umar Idris Ahmed warbaahinta qaranka magaalada Baardheere ee gobolka Godow.